Wararka ka imaanaya magaalada Boocama ee gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in halkaas maanta ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa ciidamada Puntland iyo maleeshiyad hubeysan oo taageersan maamulka Somaliland. Xiisadan ayaa timid kadib markii duleedka magaalada Boocama ee gobolka Sool ay isku urursadeen maleeshiyad hubeysan kuwaas oo doonaya inay magaalada Boocama kala wareegaan ciidamada Puntland. Dadka magaalada Boocama ayaa waxa ay warbaahinta u sheegayaan inay si weyn maanta u dareemayaan xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada Puntland iyo maleeshiyad hubeysan ee taageersan Somaliland. Saraakiisha ciidamada Puntland ee gobolka Sool weli kama hadlin xiisadda dagaal ee u dhaxaysa ciidamada Puntland iyo maleeshiyadka hubeysan. Hase yeeshee, waxaa xusud mudan deegaano ka tirsan gobolka Sool ay hore ugu dagaalameen ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa weli isku hor fadhiya deegaanka Tukaraq ee gobolkaasi Sool. Audio Jungle.